Asalaamu calaykum walaal. Waxaan kula wadaagayaa in aad iska soo fiirisid heerka ay qoraxda jirkaaga inta ku jirto ee aad u baahan tahay haddaad dhulalka galbeedka joogtid. Si kastaba haddii waa fiican tahay lagu dhaho qoraxdaada iyo haddii kaleba ha aadin dukaamada oo kaniiniyaal inaad soo gadatid ha iska cunin fariiso qoraxda. Gaar ahaan waqtiga kuleelaha hadda camal ku talagal wiigi intay qorax jirtaba inaa in ka qaadatid adiga oo kareemka korka qoraxda kaa difaacaya marsanaysid, madaxaagana ka daboolanaysid, wejigaagana ka ilaashanaysid. Walaal ku talagal qorax inay qaadatid. Qoraxda ilaahay ujeedo fara badan ayuu u abuuray, lama qiyaasi karo waxa ay noo hayso. Qorax la'aan waa nolol la'aan. Walaal si ay noloshaadu kugu macaanaato waa in aad banaanka u baxdaa, qoraxda qaadataa. Hadduu gurigaaga banaanka gaardan leeyahay, gaardanka fariisataa. Subax walbo fariiso banaanka, biyahaaga ku cab, cuntadaada ku cun. Haddaad haysanina bax baarkaha tag. Walaal damaashaad camal ka dhigo qoraxda waqtiga ay jirto. Waxay ku keedsanaysaa waqtigan qoraxdii ay qaadatay, waxay ku keedinaysaa waqtiyada qaboobaha ayaad isticmaalaysaa, jirkaaga ku keedinaya. Kuma dhahaya aniga bax dukaamada tag kaniini soo gado. Waxaan ku leeyahay qoraxda qaado, cuntada laga helana cun, afkana ka qaado. Maxaa yeelay qoraxda haddii kaa badato tan banaanka haddii kaa badato dhibaato kuma keenayso, laakiin tan oo afka laga qaadanaya caafimaad darro fara badan ayay keenaysaa. Iskama wadi kartid kaniiniyaasha qaar. La soco jirkaaga, adiga is dhegeyso, qoraxda qaado, koofidan u xiro, banaanka ugu bax oo ahayna gaardankaaga fariiso. Madaxaaga haddaad rabtid maryad ziyaada saas u saar, wax kala saaro si kaaga difaacdo. Ku talagal qoraxda in ay nolol tahay eena aad ku anfacayso. Waa walaashiin ismahaan oo idinla wadaagaysa waxa wanaagsan. Wassalaamu calaykum.